Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow kanaalka dhakhtarkaaga. Muuqaalkan waxaan kusoo gudbinayaa faa'iidooyinka timirtu. Sidaan wada ognahay, timirtu waa shay aad loo cuno, khaasatan bisha barakeysan ee Ramadaan ee hadda ku jirno iyo weliba xilliyada la soomo. Waana wax aad u macaan oo dhadhanka u roon. Balse su'aasha ayaa ah, timirtu halkee ayay ka timaadaa, maxayse tartaa? Marka koowaad, timirtu waxay ka baxdaa dhulka saxaraha ah ama lama deegaanka ah, khaasatan dhulka wadamada Carbeed. Timirtu waa shay kitaabi ah oo Qur'aanka Kariimka ah ku sugan iyo sunnada nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam. Taasina waxay ku cadaynaysaa adoo dhinac kale eegin wanaaga ay leedahay inaan la soo koobi karin. Timirtu waa miro qofku uu ku noolaan karo kaligeed, iyada oo qofka ka heli karo nafaqooyin dhammaystiran haddana isku dheeli tiran, kuwaasoo haddaadan cunin cunno kale ama aadan helin cunno kale ay ku kaafin karaan. Nafaqooyinka ku jiro timirtu qaar ka mid ah macdanta aasaasiga ah ama wax loo yaqaano mineralska waxaa ka mid ah calciumta, ironta ama birta dhiigga, phosphorus, sodium, potassium iyo sidoo kale magnesium. Waa macdanta ku jirto ama laga helo timirta. Dhinaca fitamiinka haddaan u nimaano, fitamiino kala duwan ayaa laga helaa timirta sida thiamine, vitamin A iyo vitamin K iyo kuwo kaloo badan. Faa'iidooyinka lagu sheegay timirtu way badan yihiin, balse 10 qodob ayaan ku soo gudbinayaa. Number 1, timirtu waxay ka qayb qaadataa dhisidda murqaha marka uu qofku jirkiisa dhaawac soo gaaro ama uu xanuunsado. Timirtu waxay qayb weyn ka qaadataa inay qofkaas ay dib u dhis ku samayso murqahaas ama xanuunka soo gaaray murqaha. Number 2, waxay ka hortagtaa kolestaroolka dhiigga ee dufanka xunka ah. Sidoo kale waxay ka hortagtaa in xididada dhiigga qaado ay qallafmaan ama ay dhaawacmaan. Taas waxay keenaysaa in maadada loo yaqaano pectin oo burburiso kolestaroolka, iyo weliba sidoo kale maadadaas waxay ka ilaalisaa xididada dhiigga ah inay wasakhda fadhiistaan. Number 3, waxay timirtu daaweysaa xanuunada wadnaha ku dhaco iyo awood darrida la xiriira ironta jirka. Taasina waxaa keenayso maadada magnesiumta iyo kobarta oo laga helayo timirta. Number 4, timirtu waxay daaweysaa anemiyada ama wax loo yaqaano dhiig la'aanta, maadaama ay ku jiraan waxyaabaha kobcin lahay dhiigga ay ka mid yihiin ironta, kobarta iyo sidoo kale vitamin B2. Number 5, waxay daaweysaa inay lafuhu burburaan ama ay noqdaan kuwa bilaa awood ah iyo weliba cudurrada la xiriira lafaha, maadaama ay ku jiraan maadooyinka u fiican lafaha oo ay ka mid yihiin calciumka, phosphoruska iyo vitamin A. Number 6, timirtu waxay u fiican tahay hormoonada, gaar ahaan kuwa kobciya qaadista uurka iyo dhalmada. Number 7, waxay timirtu u roon tahay saxidda appetite-ka ama doonista cuntada, maadaama ay ku jirto maadada loo yaqaano potassium ee kobcisa unugyada kiciya appetite-ka. Number 8, waxay ka ilaalisaa jirka sunta iyo waxyaabaha loo yaqaano free radicals oo ah wasakhda iyo sunta wareega dhiigga, waayo waxaa ku jiro maadooyinka sodium, potassium iyo sidoo kale vitamin G oo jirka u qaabilsan inuu sunta iyo wasakhda ka saaro. Number 9, timirtu waxay daaweysaa inay timihu daataan ama ay nabad guuraan, sidoo kale inay inaha hoostooda daal ka muuqdaan ama midabkooda ay doorsamaan oo isbedelaan, maadaama ay timirtu laga helayo vitamin B2 oo u fiican xaaladahaas aan soo sheegnay. Number 10, waxay daaweysaa gaaska caloosha noocyo badan oo ka mid ah, waayo waxaa ku jiro kaloor, sodium iyo potassium oo u roon saxidda gaaska caloosha. Waxtarku timirtu ma ahan mid halkan lagu soo koobi karo, taasna waa sababta loo yiri waa waxa ugu fadliga badan ee lagu afuro qofku markuu uu sooman yahay. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa faa'iidooyinka ay leedahay timirtu. fadlan ku soo biir kanaalka oo subscribe saar si aad ula socotid talooyin muhiim u ah caafimaadkaaga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.